وأنا سلامنا ما صاحبتها كونا جنال كنا بدايات يعني كي ما تعلنا سيدا ونكسنا دول ساعتان مقالة برتان صودة بعد صاحب يالمان تحرر أنا اللي وداعو شو كان كي ود بيار مع أفلام تقوى ده لو بعد الحين تبدأني هاي بس أنت أقول قل المقال كي جاهن كعسنا أنا جنال كسر بيرسل مقال كدات كيش لكن صار سيشر جري ولو ذاك صاحبتها سونا بعد صاحب يال sheekadu ugu horeysa aan ku bilaabi doono barnaamijkan waxa weeyaan directorka lagu magacaabo Sajid Khan ayaa markaan qorsheenayo inuu fanka ku soo diro wiilka uu dhalay Govinda ee lagu magacaabo Yashfadan Aguja director Sajid Khan ayaa qorsheenayo inuu film iskugu keeno wiilkan Govinda uu dhalay gabadha lagu magacaabo Natansha Goel. Natansha waa gabadhii hogaamiyaha ka ah ama qaybta ka ah filmka lagu magacaabo Labata Ladies kaas oo la daawaday sanadii 2023 waan arki doonaa wixii ka soo kordha wararkaasi dhanka kale hadii aan eegno waxa maanta tiyaatarada ama dhanka OTT-ga laga daawan doonaa aan dhahay filmka lagu magacaabo qaybtiisa labaad ama wartu NTR sidoo kale Hirtigrashan ayaa hogaamiyalkooda ah Netflix ayaana laga daawan doonaa iyadoo lagu daawan doono lahjadaha kale ah ama luqadaha kale ah Hindi, Telugu iyo Tamil sida shaac laga qaadan 9 Oktoobar oo maanta ku beegan ayana barta OTT-ga ee Netflix laga daawan doona saaxiibayaal sheekooyinka waxa qayb ka ah shalay waxa goosgoos laga soo bandhigay filmka lagu magacaabo Eg Diiwaankii ka Diiwaaniyaad filmkan waxa hogaamiye ka ah jilaaga lagu magacaabo Harshvardhan Rani iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Sonam Baweja filmkan waa film jacayl ah kaas oo la rabo in ama la rajeynayo in la daawado bishan hadda aan ku jirno 21 markii gaadho dhanka kale hadaan eegno aflaamta tiyaatarada saaran waxa tiyaatarada saaran filmka lagu magacaabo Kantara Chapter 1 filmkan markaan eegno qaybta lahjada Hindiga lagu daawado lacagaha uu soo xareeyay filmkan inta maalin oo tiyaatarada saaran yahay gudaha Hindiga wuxuu ka soo xareeyay in ka badan 99.72 karoor suuqyada caalamka wuxuu ka soo xareeyay 309 karoor isku dar dal iyo dibadna waxa uu soo xareeyay 376.80 karoor lacagahan aan ka hadlayno waa lacagaha uu ka keenay Hindiga yani luqadda Hindiga marka lagu daawado ma aha luqadaha dhankaasi koonfurta Hindiga lacagaha uu ka soo xareeyay dhanka kale asigana waxaa tiyaatarada saaran Varun Dhawan filmka hogaamiyaha ka yahay lagu magacaabo Sunny Sangari ke Tusli Kumar filmkan marka la eegana lacag lagu qarsh gareeyay waa in ka badan 70 karoor marka la eegana waxa tiyaatarada saaran 2 Oktoobar maalmaha uu tiyaatarada saaran yahay waxa uu soo xareeyay wax ka yar 40 karoor taas oo ka dhigan filmkan inuu natiijo ahaan noqon karo film flop ah ugu dambeyn waxa shaac laga qaaday jilaaga lagu magacaabo Rajaf Jogali sidoo kale gabadha lagu magacaabo Sayana Manjikar in loo dhiibi doono film horror nooc min al-jacayl ah kaas oo soo saaray ku yahay Fakis Bahil filmkan wali shaac laga qaaday waqtiga iyo taariikhda la sii yani la daawan doono laakiin waxa si hordhac loo sheegay in labadan jilaa ay hogaamiyalkooda noqon doonaan haddaba intaas ayaan soo gudbiyay muuqaalkayga fadlan muuqaalka dadka sheelaaga inoo saar si share garay oo loo wadaag asxaabtooda ku maasan tahay daawashada muuqaalkeena